weli waad u da'yar tahay nolosha, weli waad u da'yar tahay fursadaha waxbarashada. ogsoonow buugga iyo qalin lagama weynaado. siduu yidhi abwaankii hadraawi, qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto, waa saaxiib kal furan sunto fara ku hayntiisa. aqoontu waa ilays kuu iftiinsha aqalka. si kale haddaynu u qeexno, aqoontu waa dharaar, jahligu waa gudcur. keliya waxaa xor ah kuwa wax bartay. fadlan laag sheer iyo sabskaraab noo saar youtube-ka kaamil show. maxay tahay inaad barato intii aad da'yar tahay? ma jiro aqoon ka horrayso barashada diinta islaamka. waxaa xiga barashada maadiga, ta iskuulka lagu dhigo. hawdayma la'aan xirfadaha aqoonta ee wakhtigan casriga lagu shaqaysta, sida xirfadaha fudud iyo xirfadaha culus. habka ugu wanaagsan ee aad wax ku baran karto waa 4 hab. habka muuqaalka, inaad wax daawato. habka dhegaysiga, inaad wax dhegaysato. habka akhriska iyo qoraalka, iyo weliba habka xarakaadka jirka, sida markaad baranayso baaskiilad ama gaadhi. xilliga ugu habboon ee waxbarashada waa aroorta hore, salaada subax kadib. jadwalka ugu wanaagsan ee waxbarashada ma kuu sheegaa? waa 5 salaadood gadaashood inaad wax barato, isla markaana aad ducaysato. goobaha ugu wanaagsan ee aad wakhtigan casriga aad wax ka baran karto waa Google-ka, YouTube-ka, website-yada iyo weliba ababka. wax baro intaad yar tahay. buug iyo qalinka lagama weynaado. mahadsanid.